waa mid ka mid ah guulaha waaweyn ee dowladda Soomaaliya samaysay muddadii sanadkeeda ay jirtay inay la soo wareegto maamulka hawada Soomaaliya isla markaana laga maamulo Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta ay yaalaan qalabka maamulka hawada Soomaaliya si uu ugu kurgalo hanaanka u shaqeyso xaruntaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa xaruntaasi ku soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka duulista hawada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo mas'uuliin ka tirsan hay'adda saadaasha hawada, kuwaas oo ra'iisul wasaaraha warbixin ka siiyay qaabka u shaqeyso xaruntaasi iyo muhiimadda ay u leedahay dalka. howlwadanada xaruntaasi ayuu ra'iisul wasaare Khayre waxa uu mid kasta xaaladiisa gaar uga wareysanayay, halka uu sidoo kale kormeeray xarunta loogu talagalay inay degaan shaqaalaha xarunta maamulka hawada Soomaaliya ka shaqeyn doona. halkan ama qolkan aan ku jiro waa halka ay yaalaan qalabka laga maamulo maamulka hawada Soomaaliya. waxaa ka shaqeynaya Soomaali oo isugu jira dhalinyaro iyo dad muddo ka soo shaqeynaya halkan. waxaa la ii sheegay mid ka mid ah dadka halkan ka shaqeynaya in muddo 20 sano ku dhow uu ka shaqeynayay xafiiskan oo hore ugu yaalay magaalada Nairobi. halkan dadka ka shaqeeya waxaa ka mid ah Cali Jaamac. waxaan wax ka weydiiyay inay la socdaan rikoorka ama diyaaradaha soo maray hawada Soomaaliya. wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qayb waa 2 qaybood waa raadiyaal, qayb waxa la yiraahdo VHF range-geedu uu gaaro 200 mayl 250 mayl. qayb waxa la yiraahdo HF waa qayb wadanka oo dhan communication-kiisu gaaro. qaybtaas waa HF-ka iyo raadiyaasha. qaybta kale waxa la yiraahdaa CBDLC ADSC waa latest technology loogu talagalay in looga gudbo isgaarsiinta raadiyaasha. diyaaradaha waxay u qaybsamaan qayb dul marta wadanka oo transit ah oo adduunyada u kala gooshta, qayb soo degaysa kana kacaysa. marka dulmarka haddii aan qiyaaso 150 ilaa 200 in ku dhow diyaaradood ayaa wadanka dulmara oo inta badan u badan traffic ka yimaada bariga dhexe oo u socda koonfurta Afrika ama Afrika inteeda badanba, iyo traffic ka yimaada Europe oo u socda Indian Ocean ka gaar ahaan Seychelles, Mauritius, Reunion, Madagascar dhulkaas oo dhan. traffic kale waxa uu badan yahay traffic domestic la yiraahdo oo ah diyaaradaha wadanka soo dega kana kaca. maamulka hawada Soomaaliya waxay ahayd astaan muhiim ah oo dalkan ka maqnayd muddo ku dhow 30 sano, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixisay kuna guuleysatay in Muqdisho laga maamulo dhammaan diyaaradaha maraya hawadeena. Dr. Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, xarunta laga maamulo maamulka hawada Soomaaliya, magaalada Muqdisho.